kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xarunta qasriga madaxtooyada uu kula yeeshay saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo ucuda way adag tahay inaad bedesho codad wariyaalka caanaha geeyiga Soomaalida adigoo u bedelaya hab jilin ah waxaana bulshada laga helaa dad kooban oo bedesho codadkaasi hase yeeshee Ibrahim Degar waxa uu hibo u leeyahay inuu si maad ah u bedelo codadka wariyaasha كل حمس مدة باي هيد أي ما كانت له قياسي كرا إلا أدو 8 سنة إلا 8 سنة أي نقطة كراسة حمس ولو هي متس أنت بدل سماد أو تشل عدد كورياشة حتى بيا كم إذا ورياشة أو عدد كذا تشلو لا لا حمسك دار حسن ولو أنا قاعد نصلحين دوار وعد أكتاي لكن هذا ما يلعب بدن بنصامرني أبيس كلاس من السؤال تنودي قدومي نوع هذا كمر كلاس كرايال marka ardayda badankooga iyo bulshada inteeda kalaba way ku tilmaamtay laakiin anu ismilhi wali wada u dhowday waftigii beelaana ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ee mudooyinkii u dambeeyay safarka shaqo ku joogay dalka jamhuuriyadda Djibouti ayaa galabta si rasmi ah ugu soo gurya noqday gudaha caasimadda Hargeysa iyadoo si diiran loogu soo dhaweeyay gagada diyaaraduhu ay ka soo degaan kana duulaan ee Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa waxaana ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka qaranka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha aqalka golaha baarlamaanka mudane Baashe Maxamed Faarax xubno ka tirsan golaha wasiirada xiise weyn ayuu u qabay inuu matalo codka mid ka mid ah wariyaasha taasi oo ahayd intii uu ku guda jiray barashada mihiinada saxaafadda laakiin waxa uu la kulmay كل حمس ويسك ترتايو أنا سيدم دجاني لبادي كون يو سيدي تبانكي أيام معلم لورين تري حمسي أيام أبي يقول قفصلي سيدا أو جدوني كسوري جيب مركز واحد من مركز رويال ونصور دجانو أدنى بدومي عن واحد كلن كانوا مدحوينها الجمهورية Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu xarunta qasriga madaxtooyada uu kula yeeshay saddexda xisbi qaran ee kulmiye wadani iyo ucuda ayaa muddadii uu socday diiradda lagu saaray laguna falanqeeyay waxna la iska weydiiyay xaaladda guud ee dalku uu marayo iyo qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland Xamse Dabariski Cable TV Hargeysa